السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan rajeynayaa inaad in badan aragtay koodhiskan yaryar ee xarfaanta ah, inaad ku aragtay buugta, inaad ku aragtay daasadaha, sidoo kale inaad ku aragtay wax kasta oo la soo dhoofiyo amba la soo dejiyo. Maanta waxaynu baranaynaa sida aad u samaysan lahayd koodhka markii iskaanka la dul mariyo waxa qofka u soo baxaya wixii aad ku samaysatay. Hadii aad ku samaystay WhatsApp lambarkaaga, qofku markii uu iskaanka dul mariyo koodhkaas wuxuu si toos ah u soo gudageli doonaa WhatsApp lambarkaaga. Haddii kale waxaad ku samaysan kartaa shirkadaada magaceeda. qofku soo kale markuu iskaanka dul mariyo koodhkaas ku samaystay shirkadaada wuxuu si toos ah idin ugu soo geyn doonaa shirkadaada. Haddii website tahay, haddii page tahay, meel kasta ka dhisnaato. Maanta hadda waxaan baran doonaa sidii aad u samaysan lahayd koodhkaas oo aad ku soo jiidan kartid amba aad ku hanan doontid macaamiil cusub. fadlan subscribe garee kanaalka casharkana like garee. horaantiiba waxaad la soo degi doontaa application-ka magaciisa la yiraahdo AI Scan. application-kan haddii aad ka weydid meelaha wax laga soo dego waxaan ku dhigi doonaa description-ka hoose ee casharkan, halkaas ayaad kala soo degi doontaa. haddaba saan hore ugu soo sheegay, maanta waxaynu samayn doonaa waxyaabaha yar ee xagga hoose ka qoran sida buugaagta oo kale, daasadaha, waxyaabaha la soo dejiyo amba waxa shirkaduhu soo saaraan oo kale. haddaba maanta inagu markaynu samayno waxaad ku xidhan doontaa haddii aad doonto YouTube-kaaga magaciisa ayaad ku qoranaysaa, linkigiisa ayaad gelinaysaa. kadibna qofku markuu iskaanka saaro bahalaha yaryar ee aad hore aragtay amba in badan kugu soo noqnoqday waxa u soo bixi doona linkiga YouTube-kaaga, halkaas ayaanu ka soo raaci karaa. sidoo kale WhatsApp lambarkaaga ayaa samaysanaysaa. haddii aad tahay macmiil saadad iyo sariflo oo kale ah, lambarkaaga isagoo intiisa lagu diri jiray oo kale dhammaan isagoo leh ayuunbuu qofku iskaanka marinayaa, kadibna uu dirayaa oo kaliya. haddaba application-ka markaad soo gudagashid wuxuu ku soo baxaya sidan, magaciisana waxaa la yiraahdaa AI Scan. application-ku waa sidan. haddaba application-ka markaad soo furatid intan ayaa ku soo baxaysa. marka inta ku soo baxdo markii waxaad aragtaa inuu ku leeyahay scan saar oo iskaankii shaqaynayaba wajigiisa koobaad ee caadiga. haddaba bal waxaynu isku dayeynaa inaynu scan dul saarno, waliba kan buugaagta dhammaan waxaan ku scan kasta oo la sawiro uu qabanayaa application-kan, koodh kasta oo scan. marka waxaan isku dayaa bal scan-ka ugu dhow ee buug inaan dul saaro, kadibna laftarkiisa waynu sii daba geli karnaa. shirkadii samaysay ayaa nagu xiri karaa. imika wada aragtaa haddii aan sii taabto website amba halkaas ku leeyahay website-ka sii raadi wuxuu ku keenayaa shirkadii samaysay. wada aragtaa waa wax iiba Amazon iyo eBay search iyo Google search, intaa waad ka raadin kartaa oo intaa waa ka macquul. haddaba sidan oo kale ayuu u soo baxayaa WhatsApp-kaaga. haddii imika aan ku tuso linki WhatsApp oo scan kooda baan ku aragnaa isagana soo baxo. kaas ayaan dooranayaa qaybta markaan sii taabto durba wuu soo boodaya. markiiba wuxuu ku leeyahay copy linki amba share amba search from WhatsApp. copy gareeyo ku leeyahay linkiga amba raadi. markii waad aragtaa xagaas WhatsApp kugu soo sawiraya, intana waad fahmi kartaa. oo imika haddaan search WhatsApp soo yiraahdo from WhatsApp wuxuu ku geenayaa qofka WhatsApp-kiisa amba lambarka WhatsApp-kiisa. haddaba maanta waxaan baran doonaa sidii aad u samaysan lahayd sidan oo kale. haddaba markaad rabtid inaad samaysid amba aad samaysatid waxaad soo dooranaysaa amba tegaysaa qaybtan yar kale ee xaggan xigta ee leedka xaanka xigta. tan yar xagga midig xigta ayaa taabanaysaa. kadibna marka taabatid waxa ku soo baxaya intan oo dhan. ma waxaad gelinaysaa clipboard baad gelinaysaa, ma website baad gelinaysaa, ma wifi baad gelinaysaa, ma test. adoo wuxuu ku leeyahay waxaad samaysanaysaa waxay yihiin.
مثلا waxaynu rabnaa inaan sameysano linkii amba WhatsApp number teeda kale telefoonka waan ku sameysan karaa contactna waan ku sameysan karaa YouTube waan ku sameysan karaa Facebook waan ku sameysan karaa magacayga intan oo dhan way ku diyaarsiin adigu waxuma dooranaysaa kii aad rabtid inaad ku sameysato WhatsApp ayaan kasii dooranaya kadib markaan WhatsApp sii doorto halkaas buu ku leeyahay waxaad gelisaa lambarkii uu ku leeyahay geli marka matelan lambar ayaan gelinayaa marka saa lambarka u gelisid dhan ayaa leedahay kadibna waxaad sii taabanaysaa next marka next sii taabatid kulliba wuxuu kuu soo saari doonaa intan buu kuu soo saaraya intaas uu ku leeyahay waa unlock haddaba si aad intan iskaga qaadid wuxuun baad sii taabanaysaa upgrade-ka waa sii taaban kartaa kadibna watch TV-gaas soo videogaas ayaad soo daawanaysaa kadib marka videogan amba clipkan yar soo daawatid ee xaysiinta ah wuxuu kuu soo celinaya isagoo wax looga aan saarnayn kadibna intan maxay tahay wax badanaysa I know kadibna halkaas ayaad daawanaysaa halka yar ee calaamadda yar gallery-ga oo kale kadibna waxaad taabanaysaa iyada taabanaysaa kadibna waxay ku dhex geynaysaa gallery-gaaga caadiga ah oo waa logo مثلا waxaan isku dayaa inaan sawiro kala soo qaato kaas ma soo qaadanaya kadibna halkaas buu sawirku soo istaagaya dhexdeeda tida kale background buu leeyahay laakiin se background wax macnaa sheegi maayo hadda waxa la save ayaad oranaysaa buu save garow bal haddaba aynu tijaabino maxay tahay kiimika linkigii markaan sameynay taas batan bidix baa taabanaysaa markan si aad u taabatid si aad u gashid waxa gallery-ga kugu jira wada ta laba jeer buu save gareynaya waana kuugu horeeya marka saa isla markii uu soo geliyo soo daabo ku leeyahay videogan 3 minutes markasta xaysiintan yar soo dhaafis uu kugu hagaago haddaba markii wada aragtaa linku waa WhatsApp wuxuu ku leeyahay search from WhatsApp amba copy link amba share haddaba waxaan aragnay imika inuu sidaa ku shaqeynayo WhatsApp-ka kiisi isku sii hawlmayno oo sii raacmayno WhatsApp-ka caadiga saddex kelmayno ee wuxuu ma ku tusaya sidoo u shaqeynayo waxaan isku daynaa markana inaan sameyno mid linkiya amba maxay hatoola YouTube oo kale YouTube baa soo taabanaysaa markana kadibna halkan waxaad gelinaysaa channel-ka magaciisa amba linkigiisa labadaba kulba ku kiifo anuu magacaan gelinayaa laakiin se waxa kaaga muhiimsan amba kaaga fiican inaad gelisid maxay hatolay channel-ka linkiga ayaana u fudud qofku markuu hadhow soo booqanayo kadibna next baa sii taabanaysaa next marka sii taabatay sidoo kale halka yar upgrade-kaas baad sii taabanaysaa si intan uu kaaga qaadmo watch baa sii taabanaysaa durba waxaan buu ku saaray I know da hoos taabanaysaa haddaba durba loogu iyo wixii uu isku ka dul qabtay laakiin san loogu cusub rabaa inaan doorto save ayaa taabanaysaa marka imika save gareynay xaggan ayaad sii taabanaysaa oo maxay hatolay bal waxaan tijaabinaynaa imika kii haddana imika save gareysnay ee YouTube-ka ahaa durba uu soo saaray isagana durba soo YouTube-ka caadi u xidhay markuu saa u mariyay xagga YouTube-ku geeyay waana uu search gareynay wada arki doontaa wada aragtaa waxa baaray channel-ku durba baaray search from YouTube ku leeyahay haddana imika saa u taabto eego xusmeeyso isaga automatically isku baadhayo YouTube-ka iskeenay waxaan rajeynayaa haddaba inaad casharkan wax badan ka faa'iiday wax badanna aad aragtay waxaan wuxuu taro maanta inaad ogaan doontid faa'iidadiisa sida kale waxyaabo badan baa ku sii gudaguda jira oo intan oo kaliya ma aha casharkan oo kaliya lagama baxaayo halkaas laftarkeeda iyadu waxay u baahan tahay cilmi kale oo maxay tolay waxay anfacaysaa sariflayaasha qoran lambarka kala ku qoran
waxaad kaga bixi kartaa taas adoo iskaan mariya inta lambarka iyagoo saan u samaystaan waraaqda ku soo saarta taas sharaxaad gooni u baahan tahay laakiin waxaan rajeynayaa casharkan wax badan ka faa'iiday fadlan haddii aad ku cusubtay kanaalka subscribe garee kana mid noqo saaxiibada si toos ah ugu xiran halkan waa Tusi Technology.